اولا waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasto joogtaan waan idin salaamayaa inta Soomaalinimada jecel iyo Soomaaliyo dhan aad baan idin salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh secondly waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrintan cusub ee hadda ma cusba laakiin de maxkamadda saaran ee badeena waxa weeyaan Soomaali wax ku maamaada kitaab gurigiisa loo diiday sayx alaabaday Soomaaliyay waxay kamid tahay waxyaalaha muxuu ina haystay dhibaatooyinka ina haystay horta arrintan kamid tahay waana wax fudud marka loo eego inta dheer mudada dheer aynu bilaa dawladda ahayn iyo waxa la qaatay wadankeeni laga qaatay waa waxa ugu yar baan oran karaa wadan inta bilaa albaab ahaa oo dawlad ilaalisa lahayn iyo maanta qaadashadiisa balse tiranjar lagu soo raaca la samaystay haddaan meesha lahayn tiranjar aadan u korin guri de ma kori kartid hadii albaabada laga xidho maanta waxa weeyaan kuwaynu maanta inaga inaga keendigaya madax ee waliba doonaya mustaqbalka inay inoo sii noqdaan ayaa maanta badeena bixiyay ninkii maanta badeena bixiyay ayaa maanta inaga madax inoo marka waxa weeyaan waxaad moodaa darajay baynu ku siinay markuu badeena bixiyay badii buu bixiyay intaynu ugu dhigi lahayn maanta shaabad uga dhigi lahayn again buu soo noqdo maanta madax inoo yihiin qaarna hadayba soo socdaan inay madax inaga inoo noqdaan taasi waxay cadaynaysaa waxa aynu afka ka leenahay inteenan hadda yaacaysa inaanay marnaba wax qalbiga inaga jira aanay ahayn sababtoo waxa weeyaan warinteena wanaaga wada hadlaysa iyo hal shaqsiba inta wanaaga badab ayaa badan maanta dadka sideebay inoogu noqon karaan ay u hawaysan ba karaan baan qaba anigu nink badaadii saxiixay inuu maanta madax ku noqdo ama uu jiritaankiisuba ka hor muuqdo failure baynu wadanahay gidigeenoo dhan shicibka ayaynu nahay failure baynu nahay waxaynu nahay ma jirto Kenya waa dawladda maanta Afrika ugu tabarta yar weeyaan wax allaale waxay tahayna ayna jirin one day baynu ku qabsan karnaa inagoon dawladda ahayn maanta waxaanay hawaysanaysaa inay ku maamusho oo ay waliba soo sharaxdo kuwii badda siiyay waayo Soomaalidu waxay ku maamaada ushaada nimaad ka qaadan kartaa loo dhiibtaa haddii ninkii shalay ku saxeexay badda aad maanta madaxtinimo ay soo saaraan de barina inagoo dhan buu inoo saxeexaya sidaa darteed waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed toosa oo kaca nin walba dhaxalkaaga maanta umada ilmahaagu meeshu ku kori lahaa weey waxa loo socdaa waa wax aad u yar marka loo eego waa boorshin yar marka loo eego waxa la bixiyay laakiin adoo dhan buu bari ku iibinaya shalay fursad buu helay inuu intaas saxeexo in maanta la kaco oo Soomaali ay istaagto marka hore aadan cadawga dibadda ka fikirina ta gudaha aad ka fikirto war nimankan meesha inoo fadhiyo dhiigi cabiinta ee luutriska wadankeena bilila qaystay ee inaga ina bilila qaystay ee sharafteena bilila qaystay ee jiritaankeena bilila qaystay ee inoo fadhiyo baarlamaan ee maanta ninka noocaas maxkamad inoo soo saaraya dawlad inooga dhigaya intay jeebka lacag ku shubtaan ee madax isku sheegaya maanta waad ogtihiin intuu joogay Xasan Sheekh intuu joogay حسن كلا قيبية أنا بالشيخ ومقومي يا أبيهنا ما أفلق دينيو حسن كلا قيبية أفر سنو فرديه إنه مدحوينة شرية هاي ما نقول أنكو فكري وماري تقاط كتوشية بأنا إلا مدحوينة على هيدين تانا الدن أولي هاي بقول توشية إنه فشدو وكان يكفي الشدو كان يستجا مرة تسين بالستا ما يربين نك بدأ وصحي حبي ربطها سدوا أهرنتها مركا وقد بقى بوقات كونا يقول توشية ده أصلبها بين dantiisi markuu gaadhayna wuu sii daayay wax inaga inagu saabsanna ma u joojin danta Soomaaliyeed dhibaatadu inagu hayana uma u joojin qaadku wuxuu u joojiyay inuu ruxruxo isagu dantu leeyahayna uu gaadho intiisi markii loo saxeexay laabta la isugu dhuftayna isaga iyo Uhuru Kenyatta isugu dhuftayna waxa weeye dantiisi waa laga fishaday war wadankan malihin yaana been sheegin wadankan malihin Soomaaliyeed rag baa xukuma magac inaynu soo qaadno hebel baa xukumiye hebel baa ku xukuma inaynu nidhaahnana maaha ficil ma sameeyna oo ma kacna waxbaynu qaban karnaaye awood baa Ilaahay ina siiyo Ilaahay baa ina karaameeyay sharafna Ilaahay baa inoo yeelay allihi dhulkaad ogtiin ina siiyay baa ina sharfay sharaftu Ilaahay ina sharfay ma wadna oo wadankeena ma dhacsanaa ma ka dhacsanaa nimankan xiriyaha inoo kala ooday marka hore waxa la yiri tuuga kula taaltabka ma weydee horta nimankan ma ka taqalusnaa wardadka xamar joogow Soomaalida xamar joogtay waliba nimankan halka guri ku urursan ee maanta waxay idin soo wadaan jirin dhalaalka xamar ka muuqda ma aha iyagu mid ay keeneen waxa keenay waa dadka shicibka qurbaha ku soo daalay nin waliba doonaya meel uu ku nasto maanta dadkan idinla jooga idinka nooga dhawe guriyaha ugu gari kartaan oo soo saari kartaan ninkii maanta badda saxiixay baa idinla jooga gurigaad ugu gari kartaan waad soo saari kartaan
waad ogtihiin mudaharaadada adduunka ka dhaca shicib waliba ninka uusan ku faraxsanayn bannaanka isaga saareen maantana idinku awood baad leedihiin ilaahay baa awoodda idin siiyo idin karaameeyey inaad soo saartaan anana aanu idin taageerno kuwa qurbaha joogow qurunka oo dhan iyo qabyaaladaba inagaa qaybina waxba haddaynaan maanta nimanka waddankan saxeexaya aynaan iska qaban waxba inooma tarayso inaynu Kenya iska celinno Kenya waynu iska celin karnaa Kenyan people badayadaad sheegaysaane intaa in la egna waddanka iyaga ma qaadan karaan one day baanu Nairobi idinku soo geli karnaa wallaahi baydaan qaadan karin waddanka iyaga oo bilaahi baydaan qaadan karin inta wiil Soomaaliyeed nool yahay ama gabadh Soomaaliyeed nooshahay Soomaaliyey waad aragtaan nimankan maanta ilaa waqooyi ilaa koonfur jooga waa niman maanta inaga ina bililaqaysto ina kala xidhay oo ina kala qoqobay kuma ceeshi karaan wax kale inaga kala qoqobkeena waxaan ahayn kuma joogi karaan cidna ma xukumi karaan hadday jaaniska inaga siinay mana waxna qorin waxna akhriin ilaahayna aan ka baqaynin cilmi adduun iyo cilmi aakhiro midnaba aan lahayn allana aan ka baqayno iimaan isku celiyana aan lahayn xaaraan mooyaane aan xalaal afkiisa gelin inuu maanta ina xukumo oo ina kala qaybiyo isagu taas wax ku noqon kara hadday cadaalad timaado kuwan oo kale ma shaqeeyaan culimadeennii baa ina kaday oo u aamustay waxa laale waxay ka qabanayaan ma jirto oo waxay ku faafeen inay lacag ururiyaan oo waxay nagu daawanayaan maanta dhibaatada iyo dulmiga waddanka lagu hayo culimadayadii oo way naga aamuseen oo wayna dayaceen oo qurbaha dhibaatada nagu haysay og yihiin oo dalkii dibadda dhibaatada naga haysatay og yihiin oo waxa laale waxay noo qabtaan ma jiraan culimadii Soomaaliyeed oo dhiig iyo cabiinta intay laba ilkood samaysteen dadka afka khayraadkoodii ku muteen doonaya inay waddankii saxeexaan ka hadli maayaan oo gabdhaha Soomaaliyeed ninka jareerkii xamar ku kufsanayo kama hadlayaan oo waxaad moodaa waddanka iyagu dhinac walba inuu ka qaawan yahay dhinacii diinta iyo culimada oo ka qaawanahay raggii Soomaaliyeed maanta ninkii cilmi lahaa gurigiisii buu galay markuu arkay waxa ka shaqaysanaya waddanka Soomaaliyey intii caafimaad qabtay intii iimaan lahay intii diin lahay waxba inaynu marba wax yar intay dhacaan marba aynu soo kacno dabadna bustayaasha dib u gallo wax ilaale waxay inoo tirayaan ma jirto war aan kacno aan isxorayno waad aragtaan waddankeena la qaybsanaya lagu socdaa intani waa intii ugu horeysay wallahi inagoo dhan baa laynu gumaysanaya wacagta hoosteeda layna gelinaya laanna barri ma socon doonto wax laan la yiraahdaa barri ma socon doonto gumaysiga uma kala xigtid kuma kala yaqaano Soomaali baad u tahay iyo Soomaaliyad waxaan idin leeyahay Soomaaliyey kaca oo isxoreeya oo waddankiina u tashada salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh